halkan waa martamaha magaalada Dhuusamareeb waxaa saaka ka soconaya ololo nadaafadeed ayna iska kaashanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyo maamulka caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. Xaafadaha ayaa bulshadu ka yimaadeen waxa ayna diyaarinayaan qaadista qashinka. Gadaasheeda ayaa iska rogadu taagan tahay, qashinka ayaana lagu rarayaa. Arrintani waxa ay ka dambeysay kadib markii maamulka magaalada Dhuusamareeb uu amar soo saaray ku aadan qaadista qashinka maadaama xilli roobaadkii hadda uu dhow yahay. Gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Macallin Nuur Cilmi Cabdulle ayaa waxa uu ka warbixiyay hawshan sida ay uga socoto magaalada Dhuusamareeb. waxaan wadnaa shaqo hore u socotay oo ololo nadaafadeed oo la xoojiyay sida aad ogtihiin caasimaddu waa 5 xaafadood waxay leedahay gaadiid u shaqeeya oo ayagu ay soo gateen oo ay ugu talagaleen in nadaafadda uga shaqeeyaan oo tiimam loogu talagalay oo horjoogayaalku ay u horeeyaan gudoomiyaalka xaafadaha mar kasta ay uga howlgalaan nadaafadda caasimadda. mar labaad sida aan u sheegnay waxaa jira kaambeeyno aan iska garab siino oo loogu talagalay si guud in bilicda ama face magaalaha wixii ku soo kordha oo nadaafad xumaa looga ilaaliyo bishii 2 goor mar hadba sida u suurta gasho mar usbuuciyo magaalada mar haddii dadku ku soo bato nadaafadeedana waa in la sii kordhiyaa sababtoo ay tahay waxa la cunahayo iyo waxa la cabahayo iyo waxa la isticmaalayo qashinkaas waxay u baahan yihiin in la aruuriyo. waxaan rabaa marka hore inaan si guud bulshada ugu mahad celiyo iska wax u qabsa iyo u adeeganayo ilmahoodii iyo ayatiinkooda haweenka dhalinyarada iyo dhammaan gudiyaalka xaafadaha. kulli shaqadan waa shaqo lazman ah waxa la yiraahdaa la shukr ala alwaajib. hadana waad ku mahadsantihiin. waxaan ugu talagalnay in aan u sameeyno caasimadda guddi u shaqeeya nadaafadda oo waaxdii fayadhowrka insha Allah loo magacaabo processka meel fiican buu noo marayaa. waxaan ku tala jirnaa insha Allah inaan u sameeyno meelo waaweyn oo lagu gubo qashinka sida hadda aad u jeedaan qashinka waa soo fogeyna maahane malaha caasimaddu meelihii waaweynay oo loogu talagalay qashinka in lagu gubo dhammaan reer Galmudug oo dhan waxaan ka codsanaynaa maadaama meeshan ay tahay indhihii Galmudug in la ka gacan siiyo. annaguna hadda waxaan orod ugu jirnaa oo aan ayaantan hadda wadnaa inaan diyaarino meelihii gudadkaas waaweyn laga qodi lahay xayndaab lagu sameyn lahay dad loogu talagalayo inay waardiyeeyaan oo qashinka gubaan loogu diyaarin lahay. runtii xaafaduhu gudiyaalka xaafaduhu si fiican bay uga howlgalaan barnaamijyadaas laakiin qashinka haddii inta magaaladii laga soo qaado xooluhu meeshay daaqayaan ama xayndaabkii magaalada meesha ku dhamaanaya lagu daadiyo waxba ka soo bixi mayaan. marka waxaan codsanaynaa in la ka gacan siiyo cid kasta oo ku shaqaaleeya iyo cid kasta oo awooda inay nadaafadda ay nagala qayb qaataan saas waa codsanaynaa. haddii la waayana hadda hawsheeda waa ku jirnaa insha Allah waa isku tashan doonaa haddii alla yiraahdo. laakiin waxaan leenahay inta caasimadaha kale loo qabto caasimaddu way mudan tahay yaan nala seexan xaq ay leedahay loo soo gudbiyo. waxaan kaloon u cadeynayaa bulshada caasimadda in aan u diyaarinay gaadiidkii ka qaadi lahay nadaafadda qashinka ka qaadi lahay oo nadaafadooda ka taxadari lahay tiimkii u shaqeyn lahay. waxaan rabnaa inay la shaqeeyaan gaariga xaafadaha iskale gudiyaalka xaafadaha iyo maamulka degmada oo iskaashanaya ayaa soo gaday degmada gacanta ku haysa darool baa loogu dhiibay dad u shaqeeya loo diyaariyay wax kale oo shaqaho qabanaya ma jiraan oo aan dan guud ahayn. dantaas guud marka waxa la rabaa mar nadaafaday noqonaysaa mar dhismay noqonaysaa mar waday noqonaysaa mar bilicda oo qaab kale looga shaqeynaya ay noqonaysaa hadba meeshii uu ka shaqeynayana horjoogayaalka ayaa maxaan ku raadayay insha Allah idinku matalahayo gacanta wax uga haya. waxaan rabnaa marka ganacsatada dadka ganacsatada ah oo dukaamada leh kuwa maqaayadaha leh qashinka inta la soo qaado dukaanka hortiisa lagu daadinayo maqaayada wajigeeda lagu daadinayo ma u dul qaadan doono. runtii dadku ma aha dad doqon ma ah qof walba dantiisa wuu yaqaanaa laakiin waxyaalihii ugu muhiimsanaa in laga doqonoobo ma rabno. marka hore waa u digaynaa qof mas'uul ah oo meherada u furan tahay inuu hortiisa qashin dhigo maya ma u dul qaadanayno. marka labaad waxaan rabnaa insha Allah waxaan diyaarin doonaa qalabka loogu talagalay in caalamka qashinka lagu aruuriyo oo xarumaha macnaha gaarka xarumaha dhan la dhigo qof walba qashinka si uu ugu shubo ka bacdina dawladda hoose iyo dadka ugu talagaleen ay uga qaadaan. waxaan rabnaa marka in la shaqeeyo tiimamkaas loogu talagalay jawaano in qashinka lagu shubo annaga idinka qaadayna jawaanku shuba iska cabeeya afka ka xiriyo safuran annaga ka qaadayna ma ana bacdan waxbaad kala baxday shaati baad gaday
kartoonka waxbaad ka shubtay laamiga ha ku sideyn jawaan ku shub jawaanka markaad ku shubto hortaada soo dhig laanta loogu talagalay iyo waaxda qaabilsan u sheeg ama ayaga arkayo shaqadooda taa ayaga ka qaadahay markaas waxay keenaysaa in la isla shaqeeyo waxaan kaloo rabnaa bilicda caasimadda waxyaalaha haleynaya waxaa ka mid ah xoolaha lagu sii dhexdaayo kale xoolaha lagu sii dhexdaaya dad baa iskale nayl haddii gaari oo dardaro qof baa sheeganaya waxaan rabnaa dadka xoolaha iskale inay xaraystaan inay xafitaan inay indhaxumada magaalada iyo ayaga mas-uuliyad darrada ay ku sameynayaan in laamiga baabuurta ku dardarta ah inay ka daayaan waayo qofkan markuu xoolaha leeyahay xoolaha waa la xafitaa ma aha qof musaafir anta gaari neef ariya oo dardaro in la yiraahdo stationka dacwan ku qaba ma ahan runtii arrimahaasna waa arrimo aan rabno in laga waantoobo haddii la yiraahdo waa dhacdooyin aan loo dul qaadan doonin qofkii idala inuu xareysto dadka maqaayadaha iskale oo barxadaha biyaha cabashadu ka imaanayso leeyahay laamiga lagu daadinaana de ma aha qofku inuu wajigiisa dhooqa mariyo ma isku quuro qofka ganacsada ah wajigiisa waa halkee waa fiyaalaha saaka ka horeeya waa laamiga hadduu shala burbursanaay oo maanta adigu aad baktiga ku shubto meeshiina aad rabto inaad ku noolaato ma ku suurta galayso nadaafad xumadaha la iska ilaaliyo gabdhaha biibitooyinka haysta kuwa qaadka gada kuwa maqaayadaha jooga qashinka jawaanku shuba annaga idinka qaadayna wabillahi calaykum waxaa weeyaan ma rabno annaga waxaa weeyaan shacabka kalsoonidiisaan ku shaqaynaa kala dambeynta iyo nidaamkana in lagu shaqeeyaa la rabaa waxaa kaloo intaa dheer tiimamka loogu talagalay inay nadaafadda ka shaqeeyaan waxay u howlgeli doonaan maalin leh usbuuc leh iyo bil leh hadba siday u howlgalayaan waxaan rabnaa in loola howlgalo shaqada midda maalinlaha oo xaafadaha laga soo qabanaya in waxaa la rabaa gabar la arko gurigeeda jawaanka ka soo bixido iridda ay soo dhigto wiilashii gabdhihii loogu talagalay ka qaadahay midda usbuuclaha oo loogu talagalay meelaha bulshadu ku badan tahay oo magaalada dhexdeeda ah in laga qabtana waxaa la rabaa xilligeeda inta lagu xisaabtamo oo idaacadaha lala socdo oo electricianada lala socdo oo ogeysiisyada lala socdo campaign-kan markuu kugu soo aado nadaafadii inaad qashinka banaanka iska soo dhigtid lana shaqaysid midka guud oo maamulka caasimaddu ka qayb galayo sidaan oo kale waxaan rabnaa asagan in gacan nagula siiyo gacansiinta waxaa ka mid ah qashinkii in anta jawaan lagu shubo banaanka lasoo dhigo runtii annagaa iska qaadayna waxaad ogtihiin caalamka waxaa jira xaafadaha oo kale v yaraa laga qaadaa ayagaa wax lagu qabtaa haddaad $2 bixido ee gaarigii dawladda ugu talagashay aad ku ogaatid jawaankaada inuu qaaday ee aad ku ogaatid meel xaruntii loogu talagalay godkii loogu talagalay in la geeyey sidaanoo kalena la gubaayo horumar baad gaartay laakiin haddii dhikila $5 kaa qaato oo sharci darro ah haddana meel sharci darro ay geyso ridii saaka kuu soo sooftay ay daaqdo sunbaa gurigaadi kugu soo hoyanaysa taa waxaan rabnaa in laga waantoobo insha allah waxaa shaqayn doona ciidamada kontaroolada oo kontarooli doona gaari kastoo qashinka wada iyo meelaha la geynayo laamaha amnigaa shaqayn doona ilaahay idinkiisa oo u diyaarsan inay tiimamkan la shaqeeyaan waxaan leenahay gaari baabuurta ugu talagashay dawladda hoose nadaafadda inay ka shaqeeyaan aan ahayn ma u idmana mana qaadi kara inuu anta qashin qaado oo meel geeyo maxaan u soo tagnay halkaan maxaan u nimid labadii gaari oo halkaan la keeno iska rogayaalka inaan xaqiijino in qashinkoodii la gubay halka jawaano la soo qaadana xaqiijin u baahan yahay waxaan kaloo rabnaa dadka ayagu hantida haysta sida qaldan ay uga baxayso walaalayaal waxaan leenahay si qurxan ay kaga baxdo sababta ay tahay jadwalkan la sameeyay adiga danbaa kugu jirta gurgaadi adoo joogaa lagu shaqeynayaa $20 meesha kaaga bixi lahaydna $2 baa kaaga baxaysa runtii waxaan rabaa inaan mahad celiyo dhammaan bulshada caasimadda haweenka dhalinyarada odayaalka culimadiinka oo aan gacan ugu siinayo howlaha danta guud waxaan leenahay caasimaddu waa caasimadii cid kastoo ku nool ama ku dhalatana xil gaar ah ka saaran qof oo qofna ha ku hadlaynin qof oo qofna ha ku dacayadaynin qof oo qofna ha kula dagaalin gurgaada hortiisa waxa yaala adaa la rabaa inaad gacanta ula tagto annaguna aan kugu gacansiinaynaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ololahan nadaafadeed ayaa waxa uu wax weyn ka tarayaa bilic soo celinta caasimadda galmudug ee dhuusamareeb bulshaduna waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan maamulkuna ay kala qayb qaadan doonaan maadaama xilli roobaadkii uu dhow yahay laguna jiro bartamaha magaalada dhuusamareeb ayaa si weyn wax isaga beddelaya maadaama maalmihii la soo dhaafay ololahani uu ka socday gudoomiyuhuna waxa uu sheegay iyo guud ahaanba maamulkuba in ay hawshan sii wadi doonaan inta magaalada laga nadiifinayo maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb